بسم الله أنا قاعد أفتح قاسم علي رمضان وناكسن كسروا حلقتين لبعض حلقوين كسبدل حلقتي هروح على قصة شيء كيس نفهم جود وسبدل كا إنه فعنا إن سبدل كويا خير كونه إلهي الدنيا نروق على جلي أو عادي لا يوهيد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم لكن حلقتنا لبعض حرنا أنا وش كيس إنه ما حكى سبدل وحرا مركور الناس لفهنه سبدل كا وشيء أساسي وقوة قف خرمك وباعي إنه جاره haddii aad la sheekaystid dhammaan dadyoga dunidan horumar ka sameeyay waxa kaliya ka sameeyeen ee waliba buddiga u ah ee asaaska u ah horumarkooda waxay tahay inay marka hore iska bedeleen noloshooda sida ahayd isbedelkan wuxuu ka bilowdaa marka hore inaad bedeshid dhaqankaaga marka labaad aad bedeshid dhaqankaaga marka bedeshid waxa bedelmaysa naftaada marka bedeshid waxa bedelmaysa noloshaada oo idil labada shay ugu muhiimsan ee qofka ku keenay inuu isbedel sameeyo ama labada shay ee qofka ku dhaliyo inuu isbedel u baahdo waxay tahay mid koowaad dhibaato ama caqabad qofka haysata hadiiba ay dhacdo noloshaada in caqabadi ku soo wajahdo caqabadaas laba mid bay noqonaysaa in caqabadu ay ku siiso baraarug nafeed aad ku baraarugto in dhibaatadan jirta aawadeed aad u baahan tahay inaad iska bedesho dabeecadahan iyo dhaqamadan iyo ficiladan hadda aad qaadayso aad samayso ficilada dhaqamada dabeecada ka wanaagsan ama in caqabadu ay kugu dhaliso baraarug ah in dhibaatadan ay tahay shayga kaliya ee noloshan halkan dhigay aadna u baahan tahay inaad iska bedesho shayga koowaad marka qofka ku dhaliyo inuu isbedel u baahdo caqabada badanaa dhalinyaradu hab fikirka u fakaraan ayaa waxay tahay in dhibaatooyinka yihiin wax kaliya noloshooda halka ku ekeysay ama dib u dhiga laakiin waxa ogaataa caqabaduhu waa mashaariic aan la ogeyn waa mashaariic noloshaada horumarinaya waa mashaariic naftaada isbedel ku dhalinaya waa mashaariic kaliya ay tahay inaad ka shaqeyso ka fakarto tafaftirto aad ku samayso like nidaamin iyo hagaajin badan waxa suuragal ah dhibaatadaas ku qabsatay in one day ee noloshaada isbedel ku sameeyso ilaahay tuu quraankiisa ku yiri inna ma'al usri yusra it mean culays walba waxa ka dambeeya fudayd caqabad walba ku qabsatana isbedel ayuu dhali karaa isbedelka uu dhalayna wuxuu sameyn karaa horumar aad u weyn marka shayga koowaad qofka isbedel ku abuuro wax weeyaan problem soo wajaha ama dhaqaale problemku meel kasta ka soo wajaho mid qoyseed mid like saaxiibo mid deegaan mid bulsho mid nafeed meeshuu doon ha ahaado shayga labaad qofka isbedel ku dhaliyo waxay tahay fursad uu helay opportunity okay wadiga waxa dhacday in qofkii ku yimaado uu ku dhahay waxa raba inaan ku sii inta soo milyan waxa u baahan inaan noloshaada bedeshid waxa ugu horeeya sameynayso waxa waaye fursadaas aad ka faa'iideysanaa noloshaada waa bedelaysaa laakiin ku xisaabtan maalin walba waxa ku soo marto fursad ka qaalisan hantida lagu sheegay darteeda isku bedeli kartid maalintii waxa ku soo marta 24 saacadood waa fursad maalintii waxa ku soo marta caafimaad waa fursad maalintii waxa ku soo mara awood waa fursad fursadaas oo idil waxay ku soo ragalaan inaad bedesho midna ku xisaabtan maalin walba qof ayaa noloshiisa bedesho waxayna isu bedeshaa la ajli dhibaato awadeed am fursad awadeed adigina waxa laga yaabaa labadaas wax ka badan inay ku soo maraan wali aadan isbedelin marka waxaan rajaynayaa in ay la fahamtay labada shay ee qofka ku dhaliyo inuu isbedel sameeyo ama ku qasba ay ugu horeyso problem ayna ku xigto fursad waxaa marka inaad ka fikirtid su'aalahan aan ku weydiiyo hada noloshaada dib ugu laabo maxay tahay caqabada kugu dhalin karta inaad isbedesho ama maxay tahay fursadda kugu dhalin karta inaad isbedesho aniga waxaan iftaax qaasim xalqooyinka isbedelan waxa idin soo ragaliyay golaha iskaashiga dhalinyarada Soomaaliyeed waaxdiisa waxay gelinta mahadsanidin